Khariid ahaan dalka Turkiga oo ku yaala galbeedka qaaradaha Aasiya iyo qayb ahaan Yurub ayaa sanadihii u dambeeyay aad looga dareemayay saameyntiisa militari, midda dhaqaale iyo tan siyaasadeed. Shacabka Turkiga ayaa 14 bisha Maayo ee sanadka 2023 u dareeray doorashooyinka madaxweyne iyo tan baarlamaaniga ee Turkiga. Doorashadan oo lagu tilmaamay tan dunida ugu muhiimsan sanadkan ayaa waxa isku arkay Recep Tayyip Erdogan oo Turkiga soo xukumayay 20kii sano ee la soo dhaafay iyo Kemal Kılıçdaroğlu oo ah musharaxa ugu awoodda badan mucaaradka ee isbahaysiga qaran. Geesta kale 24 xisbi iyo 150 musharaxiin madax bannaan ah ayaa u tartamaya ka mid noqoshada baarlamaanka Turkiga oo ka kooban 600 oo kursi. In ka badan 60 milyan oo qof ayaa ka qayb qaatay codaynta tartanka doorashada Turkiga. Waxay ahayd maalmo iyo habeen dheer oo watay xamaasad gaar ah. Dadka badankiisu waxay ku rajo qabeen in wareegga koowaad ay ku dhammaato doorashada, balse waxa la iskula gudbay wareegga labaad oo ku beegan toddobaadka soo socda. Doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka Turkiga ayaa ka dhigaysa in dadka Turkigu ay helaan hoggaan cusub oo mustaqbalka dalka ka dhiga mid barwaaqo iyo dal meeqaam sare ku leh caalamka. Guddiga doorashooyinka Turkiga ayaa ku dhawaaqay wareegga labaad oo la qaban doono 28 bishan. Kaalinta koowaad ee wareegga koowaad ee doorashooyinka waxaa hogaaminayay musharax madaxweyne Erdogan oo ku hogaaminayay 49.6%, halka musharax Kemal uu haystay in ka yar codadka uu helay Erdogan. Hase yeeshee doorashooyinkan ayaa ahaa mid taariikhi ah, waxayna musharaxiinta ku tartamaya doorashadan ay sheegeen inay aqbali doonaan natiijada doorashada, balse waxa la iskula gudbay wareegga labaad. Wadamada caalamka ayaa isha ku haya doorashooyinkan, waxaana la filayaa in wax weyn ay ka bedeli doonto xiriirka diblomaasi ee Turkiga uu la leeyahay dunida kale. Turkiga oo sanadihii u dambeeyay la daalaa-dhacayay sicir bararka dhanka dhaqaalaha ayaa haddana waxa uu ka mid ahaa wadamada safka hore kaga jiray wax soo saarka tiknoolajiyadda casriga, dhismaha ciidamada iyo geedi socodka siyaasadda dalkaasi. Guud ahaan doorashooyinkan oo lagu tilmaamay mid wadatay xamaasad gooni ah ayaa baal dahaba ka galaysa taariikhda dalkaasi. Wixii warar ee ka soo kordha doorashooyinka Turkiga kala soco warbaahinta LVD.